Waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijkeeni aynu ku faaqidaynay xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya. Inagoo qaybihii hore ku soo aragnay taariikhdii qadiimiga ahayd ee xiriirkaas iyo sidoo kale khilaafyadii soo dhexgalay maantana waxaanu arkaynaa dib u soo noqodkii xiriirka 2011 wixii laga bilaabo. fadlan haddii aad ku cusub tahay waqooyi group subscribe haddii kalena like iyo share mahadsan. Socdaalkiisii bishii saddexaad ee sanadkii 2011 ku yimi Soomaaliya, ra'iisul wasaare Erdogan oo noqday hogaamiyihii caalamiga ahaa ee ugu horeeyay ee si rasmi ah naftiisa ugu qiimeeyay Muqdisho burburkii kadib waxa uu noqday socdaal albaab aad u weyn oo furay xiriirka labada dhinac. Waxaanu si gaar ah rajo ugu abuuray qulubta dadka Soomaaliyeed ee quusta iyo calooliyowga badan ka qaaday dayaca bulshada caalamku ku qaabishay. Booqashadan waxaa si isku mid ah qalbi furan ugu soo dhaweeyay guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Waxaa iyadana dareen togan lagu soo dhaweeyay caawimada dhinac kasta leh ee uu Turkigu keenay Muqdisho, taasoo aad uga duwaneyd tii ay bulshada Soomaalidu uga baratay dunida kale. Waxaa ka mid ahaa dib u dhiska ballaaran ee uu Turkigu ka geystay kaabayaashii dhaqaalaha, shirkadihii iyo hay'adihii gaarka loo lahaa iyo kuwii dowladda Turkiga oo Soomaaliya howlo shaqo ka bilaabay, iyo horumarin farsamo oo ay dowladda iyo hay'adaha madaniga ah ee Turkigu ka caawiyeen dowladda Soomaaliya. Dhammaan arrimahaasi waxa ay bulshada Soomaalida oo xitaa ku jiraan kuwa Somaliland ee dareensanaa xaqiiqda ah in Turkigu uu isku koobay Muqdisho ku abuureen dareen walaalnimo oo ay u qaadeen guud ahaan dadka Turkiga, gaar ahaan hogaamiyaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Waxaa taas soo raacda dadka Soomaalida oo leh dabeecad neceb dulmiga, isla markaana ay ku weyn tahay ruuxa muslimnimo oo ka damqada heerka maanta ay dowladaha dunida muslimku ka joogaan awoodda dunida. Arrintaas oo keentay caado ah in ay u hanqaltaagaan hogaamiye kasta oo muslima oo ay u arkaan inuu kaalinta dowladda muslimka ee caalamiga ah kor u soo qaadayo. Markaana sida caada waxa ay fafaalahaas ka arkeen madaxweyne Erdogan. waan dhowrayaa oo waan dhisayaa, war waan dhowrayaa oo waan dhisayaa, dhanka aan haye Soomaalidu dhammaan dhabtii waxay rabtaa wuu dhimanayaa. Soomaalidu dhammaan dhabtii waxay rabtaa wuu dhimanayaa, war wuu dhimanayaa.